cilmibaaris la sameeyey ayaa lagu ogaaday qaabka uu jirka bini'aadanka isaga difaaci karo cudurka coronavirus. saynisyahanno ku sugan dalka Australia ayaa sharaxaad buuxda ka bixiyey qaabka uu jirka isaga difaaco ama uu ula dagaalamo cudurka COVID-19. cilmibaaristaasi ayaa lagu daabacay wargeyska Nature Medicine Journal ayaa muujinaysa in dadka ay uga caafimaadayaan caabuqa corona sida ay uga reestaan hargabka oo kale. ilaa iyo 4 qaybood oo ka mid ah unugyada difaaca jirka ayay sheegeen in ay durbadiiba u howlgalaan in ay la dagaalamaan fayraska islamarkaana uu jirka soo galo. khubarada ayaa sheegay in hawshan ay sidoo kale gacan ka geysan karto in si dhaqso ah loo helo tallaalka cudurkan. guud ahaan dunida waxaa la xaqiijiyey in caabuqa uu ku dhacay isku darka guud dad gaaraya 3,663,251 ruux, waxaana u dhintay qiyaastii 252,749 ruux tan iyo markii uu dilaacay. Professor Catherine oo ka mid ah saynisyahanada wax ka qoray cilmibaaristan ayaa tiri xogtan shaaca laga qaaday waa muhiim sababtoo ah waa markii ugu horeysay ee aan fahmayno habka uu difaaca jirkeena ula dagaalamo fayraskan. cilmibaaristan oo lagu sameeyey xarunta Better ee magaalada Melbourne waxaa si weyn u ammaanay khubarada kale. mid ka mid ahna wuxuuba ku tilmaamay arrin culays ka qaadaysa. dad fara badan ayaa ka caafimaaday COVID-19 taasoo macnaheedu yahay in horeyba loo sii ogaa inuu difaaca jirka ku guulaysan karo dagaalka ka dhanka ah fayraska corona. laakiin markii ugu horeysay daraasadan waxaa si toos ah loogu ogaaday 4 qaybood oo ka mid ah unugyada difaaca jirka oo diyaar u noqonaya dagaalka ka dhanka ah COVID-19. waxay saynisyahanada arrintani ku ogaadeen ayagoo dabagal ku samaynaya qof bukaan ah oo uu cudurka ku dhacay kaasoo xanuuno kale aan horey usii qabin. qofkaas ayaa ahaa haweeney 47 sano jir ah oo ka timid magaalada Wuhan ee dalka China, waxayna tagtay cisbitaal ku yaala dalka Australia. Professor Catherine ayaa sheegtay in kooxdeeda ay baaritaan ku sameeyeen dhammaan unugyada difaaca ee bukaankan 3 maalmood ka hor inta aysan haweeneydan bilaabin in ay soo raysato. waxaa la arkay unugyo gaar ah oo shaqo ka dhex wada habka qulqulka dhiigeeda. Professorada ayaa sidoo kale sheegtay inay aad ugu faraxsan yihiin natiijadan iyo xaqiiqada ah in unugyadaasi aan aqoonsanay ay ku jireen dagaalka ka dhanka ah cudurka corona. waxaana la ogaaday in unugyadaasi ay hawsha ku guda jireen ay ahayd la dagaalanka fayraska. in ka badan 10 saynisyahan ayaa muddo 4 asbuuc ah u shaqaynayay si aan kala joogsi iyo nasasho lahayn si ay daraasadan muhiimka ah ay u soo saaraan. Professor Bruce Thompson oo ah saynisyahan ka tirsan jaamacadda University of Technology ayaa sheegay in la ogaaday goorta ay unugyada difaaca jirka u istaagayaan la dagaalanka cudurka, waxayna naga caawinaysaa in la ogaado qaabka uu caabuqa u shaqeeyo. Professor Thompson ayaa sidoo kale yiri marka aad ogaatid qaababka kala duwan ee ay jawaabta jirka u dhacdo waxaad saadaalin kartaa xilliga aad ka raysanayso caabuqa. wasiirka caafimaadka Australia ayaa sheegay in cilmibaaristan natiijadeeda ay gacan ka geysan karto in si dhaqso ah loo soo saaro tallaal lagula dagaalamo caabuqan. dhanka kale hay-adda caafimaadka adduunka ayaa digniin ka soo saartay isticmaalka dawo aan la tijaabin oo looga hortago cudurka corona. sidoo kale hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in shacabka Afrikaanka ay mudan yihiin in ay helaan dawooyin la soo marsiiyey tijaabooyin habboon xitaa haddii ay ahaato dawo dhireed. hadalka hay-adda caafimaadka ayaa imaanaya kadib markii uu madaxweynaha Madagascar soo bandhigay dawo dhireed uu sheegay inay ku caafimaadayaan dadka qaba fayraska corona. ururka midowda Afrika ayaa sheegay inay doonayaan oo ay hubiyaan caafimaad ahaan waxtarka iyo badqabka dawada. agaasimaha madaxtooyada Madagascar Mrs Lova ayaa sheegtay in ku dhawaad 20 ruux muddo 3 toddobaad ah lagu tijaabinayay dawadan. tallaabadaasi oo kasoo horjeeda talooyinka tijaabada dawooyinka ay soo jeedisay hay-adda caafimaadka adduunka. tijaabada dawooyinka waxaa la marsiiyaa hanaan dheer oo lagu xaqiijinayo waxtarka. ilaa 4 heer ayaa la marsiiyaa. marka hore waxaa lagu tijaabiyaa tiro ka mid ah bukaanada, waxaana marka xiga la gaarsiiyaa dadka ku nool dalkaasi oo dhan. dhowr dal oo Afrikaan ah oo ay ka mid yihiin Ghana,
equatoria guinea iyo liberia ayaa dalbaday dawadhireedka toddobaadkii lasoo dhaafay. madaxweynaha madagaskar andrai richolina wuxuu hogaamiyayaasha afrikaanka uga warbixiyey dawada uu soo saaray xilli ay ka qaybgalayeen shir muuqaal ah. kulankaasi kadib waxay soo jeediyeen in xarunta afrika ee xakamaynta cudurrada ay qaab cilmiyeysan u hubin doonto waxtarkeeda. hay-adda caafimaadka adduunka waxay soo dhoweysay waxyaabaha ikhtiraaciyada cusub ay qaaradda ku dhaqaaqday ee ku saabsan dawadhaqameedka, balse waxay ku xiran tahay in la tijaabiyo. afrikaanku waxay mudan yihiin inay adeegsadaan dawo lasoo tijaabiyey oo la mid ah heerarka ay soo mareen dawooyinka laga isticmaalo dunida inteeda kale. waxay dalalka yabooheen in ka badan 8 bilyan oo dollar oo loogu talagalay in lagu soo saaro tallaal looga hortegayo cudurka covid-19 islamarkaana lagu maalgelinayo cilmibaarista ku saabsan baaritaanada iyo daweynta cudurrada. dunida waxay baadigoob ugu jirtaa sidii loo heli lahaa tallaalka cudurka corona. khubarada intooda badan waxay sheegeen in helidda tallaalka uu qaadan karo ilaa iyo bartamaha sanadka 2021. dhowr dal oo afrikaan ah waxay bilaabeen tallaabooyin ay uga hortegayaan fiditaanka cudurka corona. waxay dalalkooda kusoo rogeen xayiraado iyo bandow. waxaa la qaadayaa bandowga si dowladuhu ay isugu dheelitiraan xoojinta arrimaha caafimaadka iyo danaha dhaqaale. dabcinta xayiraadaha waxaa kusoo kordhay dadaalada degdega ah ee lagu raadinayo dawo. madagaskar waxay xaqiijisay in 150 ruux oo uu ku dhacay cudurka covid-19 balse aysan tabin cid u dhimatay cudurka sida laga soo xigtay xarunta la dagaalanka cudurrada ee afrika. madaxweynaha madagaskar wuxuu xayiraad kusoo rogay ilaa 3 magaalo oo waaweyn, balse waxaa la debciyey xayiraadaasi sida ay ku warantay amaba ay sheegtay wakaalada wararka ee AFP.